agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Galmudug Cabdiweli Jaamac Barro la hadlay idaacadda kulmiye ayaa faahfaahin ka bixiyay kulamo saacadihii la soo dhaafay oo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor magaalada Muqdisho kula qaatay xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana laga soo doortay Galmudug madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo mas'uuliyiin kale Cabdiweli Jaamac Barro agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Galmudug ayaa keenan u sheegay in kulamadii xalay ka dhacay Muqdisho looga hadlay arrimaha doorashada Soomaaliya cabashooyinka ay dhinacyada qaar qabaan gudiyada doorashada magacaaban balse waxa uu beeniyay wararka sheegayay in mucaaradka ay cadaadis saareen madaxweyne Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor iyo in mooshin karan ah madaxweynaha laga abaabuliyo Muqdisho xuseen aad ma hasan tahay madaxweynuhu safar shaqo ayuu ku joogaa magaalada Muqdisho kulamaduna kuwa ugu maaha hore ay u dhacday una dhici jirtay madaxweynuhu inuu la kulmo madaxdii hore ee dalka madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray waxaad la socotaa in goobtii horeysay jilal ka hor la kulmay madaxweynayaasha si guud iyo si gaar ahaaneed intaba waana kulamo la xiriira la tashiyo ku aadan maadaama dalku uu marayo marxalad xasaasiya ku aadan weliba maareynta muddada u dhaxaysa labada muddaxileed xukuumadda hadda waqtigeedu dhamaanaya iyo muddaxileedka kale iyo arrimaha doorashooyinka iyo sidii ay u noqon lahaayeen kuwa raalli laga wada yahay oo ay wada rogol u ahaan lahaayeen marka arrintan aad ka dhawaajisay la xiriirta mooshinadana waa wax kama jiraan marka waa warar baraha bulshada iyo lagu baahinayo oo waxaan waxba kama jiraan oo waxaan saliya baar soona lahayn saacadihii la soo dhaafay waxa baraha bulshada qabsaday in mooshin laga wada madaxweyne Qorqor kadib markii siyaasiyiinta mucaaradka ka hor yimaadeen guddiga doorashooyinka ee dhawaan uu magacaabay iyagana ay abaabulayaan mooshinadan dhawaan 12 musharax oo taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa qaadacay gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed waalidiin badan ayaa baadi goobaya caruurtooda oo muddo bilooyin ku xiran xabsiga godka Jilcow ee magaalada Tani Muqdisho Cali Cilmi Salaad ayaa warbixintan inooga diyaariyay xabsiga godka Jilcow oo ay hore shaaca uga qaaday dawladda Soomaaliya in la xiray ayaa waxa in muddaha ku xiran gudaha xabsigan oo ah mid adag dhalinyaro badan oo aan weli shaaca laga qaadin dambiga loo haysto dastuurka dalka ayaa dhigaya in qofka muwaadinka ah uusan xirnaan karin wax ka badan 24 saac isaga oo aan la maxkamadeen balse taas ayaan weli dhaqan gelin maadaama dadka qaar xabsiga la isaga hayo xitaana laga yaabo in muddo kadib la iska sii daayo iyaga oo aan cadaalad helin dadkan waxaa soo qabta ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA iyaga oo aan soo marsin xarunta dambi baarista booliska ee CAD-da ayayna si toos ah u geeyaan godka Jilcow oo iyagu baaris u ah ciidanka ayaa siyaabo kala duwan u soo qabta dadka iyaga oo qaarkood daaya halka kuwa kalena ku sii haya hooyo Faadumo Maxamed Axmed waxay sheegtay in wiilkeeda oo lagu magacaabo Ismaaciil Cali Ibraahim uu muddo 4 bil ah uu ku xiran yahay godka Jilcow iyada oo na tilmaantay in hal mar xitaa loo diiday in la tuso maanta aan tagay hadaan kula hadlayaan tagay inta cid kula hadlaysa ma la iska baxaleedaa wiil kale oo meesha fadhiya askarin wuxuu yiri war meeshaan uu yiri cidna lama hadloo yiri abiisa tagay xataa lama tusin sidoo kale hooyadan waxay cadaalad darro ku tilmaamtay in sifa sharci darro ah oo isaga xiran yahay wiilkeeda xilli la soo daayo qofkii kale ee la xirnaa waxayna intaasi ku dartay in Ismaaciil Cali Ibraahim uu ahaa wiilka kaliya ee dhashay madaxda dalka ayayna ka dalbatay inay cadaalad helaan Ismaaciil Cali Ibraahim wiilkayga halkaas wiil weeye geeri nolol midna kuma hayo qolo nabad sugid la dhahayaa qabsatay balaastiga laga qabsaday wuxuuna ka shaqeynay qashinka oo dadka xaafadaha laga qaado janjiyashaalka qaadaan dambina hadda oo cadeenaho lagu hayo male dambi haduu leeyahayna ii arkaanba haduu nool yahay ama haduu dhintay wiilkayga si degdeg ah in liigu soo deeyo muddo 4 bilood uu xiran yahay waxaan rabaa ummadda Maxamed Soomaali haday hooy Soomaaliyeed ah waxaan rabaa wiilkayga inaan si degdeg ah liigu soo deeyo ayaan doonayaa madaxweynaha xilwaanada inta muslim ah wiilkayga xawshaan uu dalbanooya aniga liigu soo deeyo halka wiilan qaba wax fiilay ma wax idayga ma joogaan markii la soo daayay wiilka kale muxuu idin sheegay oo idin la wadaagay waxba nooma sheegay ani tolkayga ay soo deeyo yiri aniga tolkayga ay soo deey god Jilcow sheegay abuukaate Cali Xalane oo kamid ah abuukaatayaasha dalka ayaa sheegay in meel ka baxsan saldhigyada booliska
iyo xarunta baarista ee CAD-da aan dadka lagu xiri karin wixii ka soo harana ay tahay sharci darro. qaanuunka wuxuu aqoonsan yahay in qofka xurriyadda looga qaadi karo ama lagu xiri karo meel sharciga uu u aqoonsan yahay in ay tahay meel qofka asaga ah xurriyadda looga qaadi karo. laakiin dii ay tahay meel ka baxsan xabsiga ama saldhigyada booliska ama hay-adda CID-da xilliga ay baarista ay wado sidii saldhigga booliska oo kale qaanuunku waa aqoonsan yahay. laakiin meel kale qaanuuniyan looma aqoonsano in qofka xurriyadiisa looga qaado oo maxbuus looga dhigo. baarlamaanay la soo mariyey, shuruuc ahaana loo soo qaatay, waa la ansixiyey. marka waxaa waaye sharciyaday kusoo baxdaa. marka waa in la helaa sharciyadihii ay kusoo baxeen. haddaysan sharciyad kusoo baxeen markaas rejiim jiray ama qof mas-uul ah oo asagu iska samaystay waxay la mid tahay asaga in gurigiisii oo dadka ayaga ah xurriyadda uga qaadayo. Sheekh Salaad Maxamed oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa tilmaamay in caqabad adag ay ka jirto godka Jilcow. Jilcowna waxba lagama bedelin. aniga Sheekh Salaad Maxamuud ah liigu xiray waa sidiisii dadka lagu ciqaabaa, waa meel aad u kuleel badan. marka wax laga bedelay ma jiraan. dawladnimadu ay dadku u basil yihiin. marka sida saxda ah ee wanaagsan ee dariiqada wanaagsan looga faa'iideysto yaa loo isticmaalin awoodda dawladda iyo ciidamada amniga si qaldan. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa hore u sheegay in haddii qof la soo xiro oo aan la horgeyn cadaalad uu qofkaasi u xiran yahay qaab afduub ah, mas'uuliyadana waxa uu dusha ka saaray cidda maamusha halka uu ku xiran yahay dhibanaha. haddii qofka la soo xiray oo aanan la geynin xeer ilaalin iyo maxkamad toona oo aanan sharciga la geynin, qofkaasi wuxuu ku xiran yahay sharci darro, waana xaaraam xarigiisa. sifada iyo magaca uu qaadanayna qofkaasi waa qof afduuban. cidda afduubtana meel kale ha ka raadin, waa mas'uulka xukuma meesha uu ku xiran yahay. hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa hore u sheegay in xabsiga godka Jilcow uu yahay meel lagu dhibaateeyo maxaabiista aan cadaalad helin, balse 16kii bishii December ee sanadkii 2018 ayay dawladda sheegtay in guud ahaan xabsiga godka Jilcow la xiray loona bedelay meel lagu tababaro ciidamada NISA. waxay weli u muuqataa in 2 sano kadib hadalkii dawladda in xabsigaasi uu sii shaqeynayo dadkana lagu xiro. maanta meeshaan aan joogno oo hore loo dhihi jiray godka Jilcow waxay ahaan jirtay xabsi lagu xiro dadka. marka cabasho noogu yimid ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan, waxay wasaaradda amniga iyo xukuumadda garatay in meeshaan xabsiga laga bedelo, loona bedelo meel ama goob ay ku bartaan ciidamada nabad sugidda, tababar ay ku qaataan, sidoo kale lagu baro la dhaqanka bulshada ama xuquuqul insaanka in halkan tababar lagu siiyo. waxaa la mahadiisan maanta inoo magac cusub halkan loo baxshay waa Jilcow ama xarunta Jilcow. marka godkii aan ka dhaafnay, marka waxaa la socotaan in xukuumadda madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo in dadaal badan u gashay in wax kastoo dadaal lagu gaari karo ama shacabka ka yimaado in halkan fikir xun laga haystay in godka Jilcow dadka lagu dhibaateeyo ama lagu dilo. marka meesha waa ka saarnay. waxaad ogaataan qofka la xiro hadda kadib 2 meel kaliya laga raadin karaa ama meel saddexaad ay jiri karto, waa saldhigyada booliiska iyo xabsiga dhexe. sidoo kale nabad sugidda waxay xaq u leeyihiin markay qofka soo qabtaan in 48 saac ku haystaan baarista xisbiga, wixii ka badan inay soo xalaaleystaan ama sharciga u maraan.